garowga doorashada anagu ka duulayna ayaa waxaan keenay qalabkii casriga ee ugu dambeeyay ee kala erinta banaanbaxyada sharci darrada ah sababtoo waad ogtihiin hadda ka hor bayna soo martay shaqaaqooyinku markay dhacaan hadda ka hor waad ogsoontihiin qalabka lagu kala eriyo banaanbaxyada sharci darrada aad bay noogu yaraayeen maanaanaysan wax yar banaysanay oo oldi oo weliba oo duuga oo hore iyadoo laga duulayo doorashada soo socota if hadday dhacaan kacdooma sharci darra hadday dhacaan si looga hortago iyadoon khasaare weyni cidna ayna gaadhin aan cidna ayna ku dhibtoonin si fiican si loo kala diri lahaa dadkaas iyagoon dhibaatayna soo gaadhin ayaa qalabkan casriga aan u keenay runtii xukuumadda inagoo la kaashanayna xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ayaa qalabkan casriga ah ee lagu kala eriya banaanbaxyada sharci darrada ayaana loo keenay maadaama inagu soo food leedahay doorashadii waad ogsotiin hadda labadii sane ee u dambeysay oo isbeddelku dhacay dadku waxyaala badan ay tabayeen banaanbaxyo bay samaynayeen banaanbaxyada sharci darra ah marka waxaa laga yaaba marka qaarkood inay wax ku dhintaan dad ku dhintaan marka ciidanka qoryaha lagu qabsado ee dadku si xun u buuqaan ama hantida ay burburiyaan dadka jajabiyaan guryaha jajabinayaan waxaa laga yaaba ciidanku inuu xabad rido qalabkan maadaama uu raranaysanin inuu xabad ridaa laga yaaba kadib taas khasaaray keensanaysa khasaare ballaaran baa dhici karay marka qaarkood iminka insha allah waxaan rajeynaya taasi inayna dhicin waayo ciidan hadda waxaanu ku qalabeynay qalabkii casriga ee ugu dambeeyey si khasaaraha loo yareeyo already waayo qalabkani waad ogtihiin lacag qaali ah lagu soo iibiyey helmantiyadii kuwii askariga laftiisa haddii wax kasta lala dhaco iminka oo wax kasta la sameeyo khasaare badan ma soo gaadhayo iska difaacaya waa ka dhigan tahay hadday xagga laabta noqoto hadday looga noqoto hadday madaxii noqoto waayo qalab casri weliba hadda 13 ay tan baan dalbanay in loo keeno weliba qaybo kale casri anaga dhan hadda rasaastii rabarkayd waan dalbanay hadda waan loo keenay muddo dhow sunta dadka ka ilmeysay iyadan oo noocyo kala gedsan baa iyaguna qaybtii hore qaybtii kale waa la keeni doonaa marka ciidankan hadda naga dambeeya waa ciidankii loo tababaray kala erinta banaanbaxyada sharci darrada armaabitanaga waxaa loo yidhaha weeyaan ciidankani kadib ciidankan qalabkan ay tabayeen qalabkiina waa loo keenay ilaahay baan ugu mahadinaynaa iyo runtii xukuumaddoona garab istaagan mar kasta oo u taagan in ciidankan gaar ahaan booliska qaybihiisa kala gedisan oo armaabitanaga ku jira in la qalabeeyo la habeeyo laisku dubarido markaas taas kolleyba waa guul noo soo kordhay annaga ka boolisaan xafiiskan komishinka booliska guud ahaan gebigiisaba dhulka lala samay isbeddelka wixii ka horreeyay 12 sano maba jirinba saraakiisha in la xidho in la eriyo in la dilo unbay hayeenba gebigeeduba iminka isbeddelku markuu dhacay xukuumadda miisaaniyad bay noo qabatay lagu soo celinayo dhammaan saraakiishii askartii hore la eriyo waan soo wada celinay kadib 2 sano iyo dhowrta bilood hadda isbeddelku uu jiro waxyaalo badan baa booliska laga bedelay in la kabo booliskii tayo iyo tiraba in kor loo qaado dhinaca aqooneed dhinaca qalabka dhammaan waxay xukuumaddu xoogga saartay in la kobciyo booliska oo kor loo soo qaado maadaama 12 sano u dambeysay booliska la baabi'iyey ee xukuumadii hore ay baabi'iyeen in kor loo soo qaado waayo waad ogtahay nidaamka u horeeya boolisku waa muhiim dowlad ahaan markii dowladda sheegayo booliska horta waa muhiim weeyaan waa laf dhabarkii aasaaskii u horeeyay weeyaan ee bulshada u adeegaya weeyaan marka iyadoo taa laga duulayo xukuumadda hadda waad aragteen qalabka casriga ugu dambeeyana naloo keenay wixii kale naga dhimanna tartiib iyadana waa la wadaa ciidan badan hay noo tabarka noogu jira oon doorashooyinkii ugu talagalay maadaama doorashooyinkii la gelayo ciidan kun oo noo xaraysan baa jira ciidan kulli dad ku xaraysan oo muddo dhow aan oo qalin jebin doona insha Allah iyaguna qaybahan kala gedsan iyagana hadda armaabitanagan qaybahan qalabkan iyo qaabka lagu tababar iyaga laftu tabarka waan siinay wayna qaadan doonaan marka ciidankana markuu noo soo baxo iyagana wax badan oo isbedela iyo shacabku dareemi doona insha Allah la yiraahdo